السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دعوة شقيمة هي قيالة كحرم بيج كوين جوال تي في. موقع كتضبط كان واحد وكسب سنة هاي أب إنير وإلهي دقالة وديبي هسا هاتك جرشالة جرشة مرك عن لا هاي وقفك مرك ودريمي كريو قفك أنا وحبة هيسن باهديسا. موقع كم واحد دونيا إن عن دين كلبحو وأدي للدعوتين واحد وكسب سنة هاي. داو شو ناس. hadda waxaa soo galay meesha aabbihii iyo inantii yareed ee ilaahay waxsiiyey waxayna doonayaan ina ay gataan wixii ka dhiman nolol maalimoodkooga ee ay rabaan in ay isticmaalaan waxayna soo galeen dukaan weyn oo lagu iibiyo alaab kaste tayri waxay arkaysaa shukulaato oo hore ayay ka soo qaadanaysaa maadaama aabbaheed uu yahay mid awooda inuu u gado wax kasta ay tayri rabto hadda waxaa soo gelaya aabbihii iyo inantiisii yareed ee faqiirka ahaa mar kastaba wuxuu ka fikirayaa oo waxa uu leeyahay maanta inta ajaabka ku wadataa ma kuu goyn doontaa waxa aad u baahan tahay ee nolol maalmeedkaaga kafeynaya kadib waxa ay u dhaqaaqayaan xagga gudaha maadaama uu lacag yar wato waana ka warwarsan yahay in lacagtiisani aynu waxba u goynin kadib tayri hareeraha ayay fiirfiirinaysaa oo waxay eegaysaa bal wax anfaca kadib shukulaato ayay aragtay oo way ku oraday waxay dhahday aabbo ma ii gadaysaa tan aabbo meey ayuu dhahay ma awoodno oo lacagta aan wadano ayaa iska yar runtii tayri way celinaysaa maadaama aabbaheed uuna waxba haysan ma ooyeyso kumana odhanayso aabbo waa inaad daruuri ii gadaa kadib waxay u dhaqaaqayaan xagga gudaha si ay u soo raadsadaan waxyaalaha u baahan yihiin ee aadka u jaban xaggan kale waxaa taagan aabbihii iyo gabadhii ilaahay waxsiiyey oo fiirinaya ninkani qaabka uu meesha wax uga gadanayo iyo waxa uu rabo runtii caano ayuu qaaday wuxuuna ogaaday inay lacag badan ku qoran tahay waxa uu iminka qaadanayaa kan yar oo waxa uu leeyahay kan ayaan awoodaa in aan gado runtii ninkani waa la yaaban yahay dhibaatada haysata ninkan kadib waxa uu imaanayaa meesha lagu gado kaawidaha gabadhu way ordaysaa oo waxay arkaysaa toobab aad u qurux badan oo runtii aad u cajabiyey way isku fiirinaysaa oo waxay ula soo dhaqaaqaysaa aabbaheed aabbo waxa ay leedahay
oo markiiba way kala soo boodday aabbaheed iyada oo alla ayaan u mahad celinaa maadaama ilaahayna siiyey taa marka aan kaga nimaadno muuqaalkan dad badan oo adduunka ku nool oo ilaahay wax siiyey ayaa jira haddana aanad dareemin jiiraankooga ama qofka la jaarkaa baahida uu ku seexanayo walaalo haddaad tahay qof dareemaya dhibaatada haysata jaarkaaga ama qofka kuu dhow ee walaalkaaya kaalmee muuqaalkani hadduu yahay midku cajabgeliyey fadlan sheer dheh asxaabtaada la wadaag waxaan idinkaga tegi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu